waa maalmo kale oo siyaasadeed oo ku saabsan arrinta doorashooyinka Soomaaliya. Muddo ka badan sanad ku dhawaadayay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu isku fahmi laayihiin dardargelinta hanaanka doorashooyinka. In ka badan 8 bilood ee la soo dhaafayna waxaa taagnaa tuhumada ay kala qabaan dhinacyada ee ku aadan meelmarinta heshiiska ay gaareen bishii Sebtembar ee sanadkii la soo dhaafay 2020. Qodobada ka soo laabtay fulinta heshiiskaas oo dhammaantood ahaa kuwa dowlad goboleedyada qaarkood ay cabasho ka keeneen ayaa dib loo eegay. Magaalada Baydhabo ayaana guddiyo farsamo heshiiskaga gaareen. Laakiin isku imaantin guud oo dhinacyadu ay yeeshaan ayaa qiilqiil galay wixii ka dambeeyay 8 February. xilligaas oo u dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa ka sii horreeyay muddo dhammaadka xileedka golaha shacabka oo isugu jira baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare. Guddoonkooda iyo xubnahana uu ka dhacay 27 December. Kama hadlayno sharciyada xafiisyada ay ku fadhiyaan xubnahan, laakiin waxaanu eegi doonaa tubta doorashooyinka Soomaaliya. Kulanka cusub ee hadda lagu dhawaaqay iyo ka baaqsashada cid gaar ah inay jirto inay ka maarman karto. Sida muuqata kulanka waxaa qabanqaabiyay isla markaana aad uga shaqeeya wakiilada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka Donnie Mamoto. sida aan horey u sheegnay mar kalena uu qiray madaxweynaha Puntland Siciid Dani. Waxaa magaalada Muqdisho xubnaha Puntland iyo Jubbaland ay ku yimaadeen war uga yimid dhanka beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo qaramada midoobay. Ujeedka loogu yeerana waxa uu ka qaybgalka kulanka ku saabsan tubta doorashooyinka. Madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cilaamiyay inuu maanta Muqdisho ka bilowdo kuna 2 maalmood socon doona kaasoo dhabaha loogu xaarayo hanaanka doorashooyinka ee dalka iyo fulinta dhammaan qodobadii lagu heshiiyay. Sida muuqata shirkaasi waxa uu muuqdaa mid dib u dhac uu ku imaan karo saacadaha hore maadaama wali dhinacyada qaarkood ay tabasho muujinayaan. Arrinta ammaanka oo walwal uu ka qabo madaxweynaha Puntland waxa ay AMISOM u sheegeen in iyagu ammaanka sugi doonaan isla markaana dhammaan ilaalooyinka dhinacyada marka laga tago ilaalada hubka fudud ku hubaysan ay tagi doonaan gudaha xarunta kulanka lagu qabanayo. taas laakiin Puntland wali uma aragto inay tahay fursad weyn. waxaana madaxweynaha Puntland uu sheegay inay ku wareegsan yihiin ciidan inkastoo warar madax bannaan ay sheegayaan warkaasi aysan waxba ka jirin. dhammaan tallaabooyinka kala duwan ee geedi socodku waxa uu ku wajahan yahay wakiilada caalamiga ay ka shaqeynayaan in dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay kulan wada jir isugu yimaadaan. kulanka waxaa la filayaa inay hadal ka jeediyaan xubno aan horey muddooyinkii u dambeeyay aysan isku wanaagsanayn madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. waana xubnaha hogaaminaya midowga musharaxiinta labadii madaxweyne ee hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. tallaabadaasi gudaha mucaaradka ayay ka caraysisay oo doonaya qaarkood inay yeeshaan hadal jeedinta iyo ka qaybgalka kulanka. sida ay tilmaamayaan wararkii ugu dambeeyay kulanka waxa wada jir uga qaybgali doona dhammaan cid kasta oo lagu casumay oo ay ku jiraan madasha midowga musharaxiinta xubno ka mid ah iyo waliba sidaas oo kale bulshada rayidka. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa yeelan doona kelmadda u dambaysa ee xiritaanka kulanka waxaana ka hor la saxiixi doona ama la baahin doona war-saxaafadeedka rasmiga ah ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen. beesha caalamku waxay yeelan doontaa korjoogtaynta arrinta doorashooyinka waxayna qaadanaysaa door xoog leh oo ku wajahan sidii doorashadu waqtigeeda lagu heshiiyo ay ugu dhici lahayd. guddiyada farsamada oo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ayaa dhawaan ku kulmay magaalada Muqdisho. sidaas oo kale xubnaha Galmudug ayaa ku maqnaa dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Soomaali galbeed halkaas oo ay kaga qayb galayaan kulan looga hadlaya xaaladda ammaanka ee xuduudda labada dhinac. sida muuqata xaaladdu hadda waxa ay u janjeersatay xagga doorashooyinka iyo dhinacyada Soomaalida la isku khasbo. waxaana dadku si weyn ay u sugayaan waxyaabaha khasabka ka soo bixi doona maadaama hogaamiyaasha Soomaalidu ay gudahooda isfaham keeni waayeen.